قدعي نجيس خبرنا دنا وليس لهلي قدعي نجيس خبرنا دنا وليس لهلي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن داودياشا قيمها iyo qadarinta mudan lahow meel walba oo aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkii codka jaaliyada Canada oo xiliyadan oo kale aad uga barateen inuu idinkaga yimaado stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya oo ku leeyahay magaalada Toronto ee dalka Canada. waxaana barnaamijka halkan idinkaga soo gudbinaya anigoo ah Muxudiin Jaamac. barnaamijkeena toddobaadkan codka jaaliyada Canada waxa aynu ku soo qaadanaynaa kulan ay soo qaban qaabiyeen aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ka kala yimid gobolada uu ka kooban yahay dalkan Canada iyo dalka Mareykanka ayaa waxa ay soo bandhigeen barnaamij wacyigelin ah oo ay ku baraarujinayaan mujtamaca Soomaaliyeed sidii looga bixi karo quursiga iyo kala sareynta ku dhex jirta ummadda Soomaaliyeed. kulankani oo ah markii ugu horeysay oo la soo bandhigo ayaa aqoonyahanada Soomaaliyeed waxay ugu magac dareen Soomaali siman. waana markii ugu horeysay ee kulankani lagu qabto magaalada Toronto oo ah halka ugu badan oo ay ku nooshahay jaaliyada Soomaalida. kulankan kulamada xiga oo joogto noqon doona waxay ka dhici doonaan qaar ka tirsan gobolada dalkan Canada iyo dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ah magaalada labaad ee waqooyiga Amerika oo ay Soomaalidu ku badan tahay. haddaba daawadayaal aan idiin soo gudbiyo kulankan oo loogu magac daray Soomaali siman oo ay soo abaabuleen aqoonyahanada Soomaalida ee ku nool waqooyiga Amerika gaar ahaan magaalada Toronto. waxaana barnaamijka xiriirintiisa halkan idinkaga soo gudbin doona Muuse Cabdulle Kuulow ee daawasho. بسم الله الرحمن الرحيم. هبه وناكسن مدنيال إي مروين مرتد الشرف تكتمد معناها فوق رنتي لو السعتان إليه ووضع قبنايان وإذ السلام وحنكم سلامي سلامة إسلامك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحافر حدنا عاو كسوق يبقلك يرنتي عزومادة لذين فذي أترنتي أقبشان برنامج كان قارك أرنتي لوجو ما قاعد درس الصومال السمن أي سدوين أسوق من قابيان أقوي هندا دل كان كندا يدل كمراكن كرنتي موضة تماما لكن وكب جندون تان وحنا دلنا أمريكا ورأرتو سيد عادة هاد ومد مسلم هذا مال السجود مادو وحدقني عادة إن عيدها قرانك حديثك وعدك مركو حال الصعتان لو كله بقولك عاوة qofku ugu tun weyn caawa nala joogo culimo diinka ku dhaqan North America ma dhihi kara dalkan Canada kaliya masjidka Khalid bin Waleed oo aad wada taqaanaan hawsha uu hayo magaalada Toronto iyo gaar ahaan guud ahaan dalka Canada maamulaheeda Sheekh Abubakar Sheekh Xuseen oo wada taqaanaan ayaan u yeerayaa oo runtii ayadaha quraanka iyo wacdiga iyo runtii barnaamijkan uu sida weyn laftirkiisa ugu soo qayb qaatay inuu bal ayadahaas iyo برنامج كان بالمركور أسجل نوفره فليتفضل الشيخ أبو بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي ما بعد سكلا أولا سوكا كان مشروعا سومالي السمن وتان راذين رنتي يعني. هل آيد بان عاو آخرين دونا إن شاء الله يذا نشرح الدونا يذا نداول نون دونتا إن شاء الله وآيد داس في سورة الحجرات. إلهي سبحانه وتعالى وحلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أن أيضا إلهي سبحانه وتعالى وحول الله يدتك يا أيها الناس وحارنك أبو الري من ذكر وأنثى لب يددق يعني وجعلناكم وحنا ذكرنا قبائل بان ذكرنا شعوب بان ذكرنا قبائل شعوب مثلا الصوماليين والشعب هذانا إلهي قبائل بنوكل قيبي يعني مر قبيلك أذيك أتهي إلهي بكوجو أبو ريان وحد دورت أذيك ما وخلق إلهي بكوجو أبو ريان مذوقة يعدانت إلهي بكوجو أبو ري وخلق إلهي سبحانه وتعالى أبو ريتاس إلهي بكوجو أبو ري oo qabiilka hadaan u soo degno annaga Soomaali hadaan nahay li tacaarafu bur Ilaahi subhanahu wa ta'ala ina isku aqoonsataan ninkan waa reer hebel waa intaas shaqadiisu yaa ma aha in lagu faano ma aha in qofka kale ku yaso ta Ilaahi ugu matalagelina madow iyo cadaan iyo maaragtay Ilaahi wuxuu ugu talagalay qabiilka in la isku aqoodo qofkaas waa reer hebel qofkaasna waa reer hebel li tacaarafu لا للتقاتلوا يعني إنا كنت قالنتان ماها إنا إسوفان تانا ماها قبائلك يددك مركا يا أفضل بدن قبيلك كلمة كفضل بدن يهي هداد لا أنا قبيلك يا أفضل بدن قل هاتوا برهانكم يعني إلهي آياتك لو وحكويري وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى وحير هذا الجنة قال ما قف يهودي نصارى موياني markaas waxa la haatu burhanakum jannada inay labadaas qolo kaliya galaan burhaantaada Kenya bala man aslama jannada waxa galay qof walba oo Ilaahay u hogaansamo diinta ku dhaqmo hadaad leedahay ani qabiilkayga qabiilka waa ka sareeya qul haatu burhanakum baan leenahay yaa ku yiri xagee ka haysataa ma diinba oo haysataa ma wax kale oo haysataa yani maaragtay inna akramakum indallah Ilaahay ba marka noo sheegay yaa see loo kalaamo badan yahay see loo kala fadli badan yahay see Ilaahay loogu dhow yahay إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي ميسانك وحكم ميسام وكاس هدان كا وح لغو ميسامنا ورمينا يا قفك وح لغو قدرنا يا لغو ماموسا يا إلهي سوء بقايا تاسينا أهيد ميسانك يعني عربتي جاهلي أهيد قبيل كوان نو قدر ريد يعني وحال لغايا با دقال أفرتن سنة سعونا ومحو كدعي جيل لك لدعي كليبي وكسعون جرين دينة إسلامك مركي تمد قبيلك waxay ku badashay ukhuwa walaalnimo yani innamal mu'minuna ikhwa yani bilal oo ka yimid xabashi buu ka yimid salman oo farisi ka yimid yani maaragtay islaamka ku walaaloobeen ma kale fadli bandayn bilal muaddinkii nabiga alayhi salatu wassalam nabigana alayhi salatu wassalam xadiis buu sheegay inuu janno galay bilal yani kabaha sharqanteedan jannada ka maqlay umar baa wuxuu leeyahay abu bakr wa sayyiduna وأعتق سيدنا بلال أبو بكر والسيد كان وحو حرية سيد كان بلال يا قريشي الكاس مركب أختي جرى وقفت لبنا والذي جرى وكسر يا قبائلك لكن مركي بلال يمد وعبد حبشي أها وحو هل مؤدك النبي إنه نقضه سيدنا إنه قاطع يعني ما ركتي محايا ميسانك وحو يسب الدلي تقوى يسب الدلي يعني أبو لهب والنبي أديركيس أها أديركيس أبيس لدى شيء أها نار بقلا يا بالي تبت يدا أبي لهب وتب سيصلى النار قبيل كيس مبد بادي مايا قبرنا مركا قشم وحل ويدينا قبيل ما لو ويدينا يمس وحل ويدينا ربي قاقيا مركا تاو حاول جادا أيضا داوها نونغط حديث كلنا بيقول كيري إن الله أوحى إلي أن تواضعوا يعني إلهي وحي ذي إن التواضع ذان هيسكبرنن يعني هيسكوين سينين حتى لا يفخر أحد على أحد قفنا قفك لسوسا وقفان وحذو قاتا فانك وحفي عن ما حتى وحا حقا إن وقفانا أنفي عنان يعني ما حد مودة بادلك إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا يعني وآية قرآن إلهي مجعل مد قف والبو يعني استجابية أو فام بدن يعني كفان بدن فكيف هذا قبيل كفان تدين وحلو وقفانا قبيل أنا قبيل هبل بانا هاي وكفض بدنها هي قبيلك كله إلهي كمجعل أقو يعني هداد قبيل كفانيسي إلهي كمجعل يعني إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا يعني حتى لا يفخر أحد على أحد قفنا قفصوصا وقفان يعني مركا مسألة وحيت هاي والبرنامج كان إن
qabaa'ilka inay kala sarreeyaan oo qabiilna hooseeyo qabiilna maaragtay waa jaahiliya jaahiliyadaas waxay u baahantay inaan daaweyno sidii islaamku ku daaweeyay yani maaragtay innama almu'minuuna ikhwa qofkan waa walaalka sharaf buu leeyahay wax ma dheerid waa simantihiin ilaahay agtiisana taqwada lagu kala sarreeyo yani marka arrinkaas dagaal culus in lagu qaado waa mahadsan yihiin walaalihii soo qaban qaabiyay shirkan yani maaragtay waxaan ku soo koobayaa maxaan qaban karaa yani wax badan baan qaban karaa qof walbo annaga naga mid ah horta carruurtiisa ka dhaadhiciya waxaa nasiib daraa aad u foolxun carruurtaada inaad ku beertid qabiilkaaga waa ka sarreeya qabaa'ilka kale yani waa jariimo xun oo aan la qaadan karin runtii carruurteenna aan ku bilowno inaa qabaa'ilku inay siman yihiin dadku ay siman yihiin soomaali haddaan nahay qabiil ka sarreeya ma jiro yani mar jaahiliyo waay mar qofkii taa ictiqaadsanna ilaahay waa inuu ka baqo yani yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowmun min qowmin yani haku isku jeesjeesinina yani asa an yakunuu khayra waxaa laga yaabaa kaa ku jeesjeesaysa inuu kaa taqwo badan yahay ilaahay kaaga dhow yahay adna waxaad leedahay waa iga hoosaysaa qabiil baa iga hoosaysa yani carruurteenna aan ka bilowno aan ka dhaadhicin qof walba carruurtiisa ha u sheego war dadka taqwada ilaahay baa lagu kala sarreyn karaa madow caddaan wax asalkiisa ku faana oo originaalkiisa ku faana ibliis baa ugu horreeyay yani maaragta oo wuxuu yidhi khalaqtanii min naarin ana yani wuxuu yidhi anaa ka khayr markii la yidhi nabiyullaahi aadam u sujuud yani waa ka khayr badan habyo maxaa uga khayr badan tahay khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin yani ani dab baa layga abuura buu yidhi isagana dhoobaa ka abuurta buu yidhi dabkuna waa ka fadli badan yahay dhoobada yaa u sheegay yani maaragta asalkaaga markaa ku faanaysid yani waa inuu noqdaa xagga diinta haddaad leedahay aabbayaashay awoowayaashay diintay ku fiicnaayeen wadaaday ahayn culumay ahayn way wanaagsanaayen la garay laakiin awoowayaashay waa reer hebel bay ahayn waana la yaqaanaa ka yaqaana arrinkaas dagaal ha lagu qaado ha la joojiyo soomaali siman maasha allah waa wax fiican annaguna diyaar baan nahay maaragtay waa in manhajka iskuullada lagu daro arrinkaas waa in wax sahlan maaha yani dad baa saa ugu dhegan dad bay caqiide ka tahay dad baa ku dagaalama marka ilaahay subxaanahu watacaala hawshaana ha noo fududeeyo يعني ما ركت وحين هنقول نقضان عملي إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله جزاك الله خير والإيري لكن أنا وكدرايا الشيخ أبو بكر الشيخ حسين رنتي ووضع تقنان ومعمولها مسجد كوين قالد بن وليد مقالة تورنتو رنتي مركان إذن لها وتم وين ودين تاس مركان كهل لأنه رنتي ووح سومالي السمن ما أنت سوى نشرح كره وحكي جرا السجى ورجع دين تكون تقصصي برنامج كان وديري هاي وقتنا وجابين هاي كومنتس بدل ما قلينا وحنو يا برنامج كان الصومالي السمن سببه سي introduction كيسي عبد الله سيسمان أورنتي سوين بل الصومالي السمن لنا برسبكتيف كلفي لنا على كفيرنا بلانو يرو فليتفضل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتي لمن أخذت إن شاء الله تعالى ماشي سكوتي مت أنا سنة الإسلام كان السلام يا السلام عليكم مركلا أنا waxaan rabaa shaqadii ugu fududeeda uma leena in la siiyay laakiin shaqadii ugu badnayd waxa qaatay rag halkan ka soo shaqeeyay insha Allah taala marka I want in particularly acknowledge dadkii shaqada iyo waqtiga iyo energy badan galiyay sida mataqaana walaakin Yaasiin iyo mataqaana Xasan iyo walaakin Sadiq Umar dheer rogi insha Allah taala inta waxaan rabaa inaan ku daro I also want to acknowledge the elephants in the room ay dhahan yani marodiga kulligood ugu jira insha Allah taala Amin Amir waa jooga MP Ahmed Hussein inuu joogaan filaysan insha Allah taala marka dhamaantiin waa salaamateen insha Allah taala waxaan rabaa wax yar inaan sharxa maxay tahay ulajeedada loo jeedo Soomaali siman waxaan u maleynayaa topic Soomaalida marka la yiraahdo social justice-kii waa nagu cusub yahay haddii laga hadli lahaa maanta qabiil ama gobol waxaan u maleynayaa hotelka meel kale islaama heleen aad ba meesha loo soo buuxin lahaa laakiin the idea sinaan iyo Soomaali iyo equality iyo justice marka laga hadlayo dad badan waxaa moodaa inay laba talaabo gaar u qaadayaan marka waxaan rabaa Soomaalida inaan u sheego Soomaali siman in laga hadlo micnaheedu kama turjumayso in qof xuquuqdiisa laga qaado qof kale la siiyo laakiin waxa ka turjumaysaa xataa qof walba Soomaali ah in xuquuq u hela xuquuqda maxay tahay la helayo ama waxa laga sinaanayo laga sinaanaa jirto yani qof cilmi leh iyo qof jahil inaba ma sinaan karaan marka laakiin taas ma waxaan ka hadlaynaa qofka meeradkii iyo markii lagu qiyaasay aqoontiisa waxbarashadiisa wax fiican waay
adiga ragnimada aysan rag kaa reebin laakiin waxaa daran hooyada yaabaha iyo meesha ku dhalatay iyo meesha ka soo jeeda inay rag kaa reebtaa daran ama gabadha mataqaanaa dumarkii ka reebto waxa loo sameeyay ama aan rabno in loo sinaado maxay tahay waxaan rabnaa kow horta waddanka Soomaaliya loo sinaado waxa laga yaabaa dadka qaar inay aaminsan yihiin inay dadka qaar ka xiga waddanku maxay keeni kartaa taas marka waxay keeni kartaa marka qof uu aamino waddanka in laga xigo ama waddanka equal opportunities una haysanin يعني demonization iyo isolation iyo qofkii inuu mataqaanaa ay dhinacaas dhigo ay keenaysaa taas waxay create gareynaysaa marka qofkii xataa waddanka kale inuu u dadaalo ama wax u qabto ama dadka wax baro inuu yiraahdo war waddankina ma iga xigee ani adiga uma sinin seen mataqaanaa wax wada qabanaynaa waxa kale oo rabin loo sanaado waxay tahay yani waxyaalaha basic human rights ka yani qofkii inuu wax barasho helo inuu mataqaanaa cadaalad rasmi u helo inuu caafimaad helo the basics oo cidna cid aysan ka xigin oo qofna aan lagu tukorin meeshu ka yimid meeshu ka jooji aan lagu talagelin Martin Luther King waxa uu maleynaa wax u dhihi jiray yani qofka noloshiisa wax u dhamaataa maalinta uu ka aamuso yani waxyaala xaqiiqada yani maalintaas ku dhamaatay inaad noolaato inaad dhimato wax farqi ah ay sameynaysa ma laha xadiiska nabiga cali sallallahu alayhi wasallam waxa xasuusana uu dhahay jiray mataqaanaa mar raaminkum munkar faluqiyir biyadi fa lam yastati' bi lisani fa lam yastati' bi qalbihi yani qofka ugu dambeeyay uu ahay وذلك أضعف الإيمان قفك وجود بقلبك كناعي يعني ما كان رح تروح معنا أما قف ولا كهول الديديو أما الليديو إن هذه أنت سكت ترى وروحها وخلد ما نبناني هلا جوجيو لكن واحد أنت تكامس أترى هذا متقنا إن أنا جماعة إيمج جوكتي قف كل جوكتا وحاسة شعب فاروق وحلو يدي سومالي ذي كورن سومالي لبوا قيبي وحيري مد ظالم يمد مظلوم ووايري مثل الدلمية يمد أسوي واحد دلمية وقيبي وأنت سومالي ذا حتى ضدك اللي جاوا بين أي مسيحيين ضدك كسريان within them دحدوده discrimination اللي تانا كجرو قبيلك اللي ليه وريه ولا ضدك كسريان وحلا جاوا within that sect نفترك وهوس بكل وضع دعاء إسرائيلك وباللعبنا يعني مرك أنتوا سنكون باللعبنين وحتى راكم مجرو سومالي سمر مرك حقوق تاجن تهاي إن أنا هرت عاونه أما وحبرنا أما ما تقنا أول ناس أنكريت جرينا كان ظلمن يكلوا دمية لبضبه محيالي labaduba kaamay u baahan yihiin aniga waxaan ka imid background of justice baan ka imid ministry of community safety baan u shaqeeyaa marka waxaa jirtay dhibaato aad ministry-ga ka qabsatay oo la yiraahdo domestic violence ama haweenka mataqaanaa xuquuqdooda lagu xadgudbo solution baa loo raadiyay xal fiican waa laga keeni waayay la dagaalan wax walba nimankii xabsi baa laga buuxo walba la sameeyay solution ma jiro ministry proposal markii dambe wuxuu leeyahay in la yiraahdo not only inaan caawino dumarka dhibaatada loo geysanay laakiin waxa caawin u baahan ragga dumarka dulmanaya inay caawin u baahan yihiin maxaa yeelay ninka dumarka iyo gardarada sameynaya marka la caawiyo waxa hoos u dhacaya dhibaatada dumarka loo geysanayo Soomaalidana same concept haddii adiga aaminsan dadka inaad ka sareyso waxa laga yaabaa in hooyada iyo aabaha ay ku sheegeen ama mataqaanaa ay dadka aad ka mala jirtay you could be an innocent we'll give you the benefit of the doubt but at the end of the day Somali siman baan nahay dad walaalaan nahay muslimiin baan nahay we have more in common intaan wadaagno baa waxay ka badan tahay intaan kala qaybso marka focus ka inaan badanina reehbel inama reer ka yimid wax farqi ay sameynayso halkan bayna keentay hadii faa'iido lahaan lahayd in wadankii ma joogi lahayn marka the idea in la iskala saaro ama hebel ka fiican it did not really work out the other thing I want to focus ka inaan saarno inuusan emotion iyo reaction na qaadin organization ahaan laakiin wax walba oo sameeyay inay ahaato mataqaanaa evidence base ma garat yani qofka Soomaaliya impact qofka la liido uu keenayo ama qofka keenayo study lagu sameeyo mataqaanaa ka bacdina xal looga raadiyo piece by piece baan ku tala jirnaa insha Allah taala laakiin at the end of the day a beautiful Somalia jirto Soomaalida ay dhahaan laakiin nobody practice I don't know if anybody practice laakiin gacmahooda jir wax ku geeyaan laakiin wax gacmahooda jir ku gooyo ma arkin kulli aniga waxa uu leeyahay laga yaabaa gacmahooda jir inay dadka mataqaanaa dhibaatada ugu geystaan laakiin gacmahooda jir ku geey ma arag hadda waxaan kaftameynay nima wuxuu yiri Aamin Cabir in wasiir laga dhigo waa uu yiri dawladii waa la kaftay waxaan ku yiri Aamin horta kor u soo qaadeenaa marka kor u soo qaadno kadib wasiir loo magacaabo marka mar rabeen aan ku dheeraad insha Allah taala hadalkii iyo faahfaahinteedii iyo xalkeedii iyo mataqaanaa meeshan ka aadi lahayn waxaan u dhaafiyaa inta iga dambeeyo waxaan rabaa mar walba inaan idinku mahad celiyo dhamaantiin and I want to particularly acknowledge walaalkeen Axmed Xuseen he is a product of what social justice is
waxaa laga yaabaa maanta walaalkii xuseen magaaladu ka yimid hadduu u tartami lahay heerka meesha uu gaara maanta inuusan gaareen laakiin waddanka aan joognaa dadka wuxuu fursad u siiyaa adiga raganimadaada iyo adiga gabarnimadaada adiga laga orod badinin ma garat aniga naftirkeyga meeshaan joogo maalin dhaweyta tartan baan galay laakiin magaaladan ka imaadaan tartami lahaa rag badan laga u dhihi lahaa waryaa fariiso waqtigeeda lama gaarina laakiin here it's everybody's time welcome back to Somali insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كان سومالي سمن مركي ليسو شيء مركو روحان زراد كعذر دارتت. سببتنا وحياة هاي قبل صاحبة ضيوات قالي يوقع. أيا بيشن جذي هذا اللي متى الله نحرسته. لما أنتي نوحان جعلان لها أنت شوكتي أنت دقيسن دون برنامج كبينات الدعيسان. دكتور إيد الله دنا صالح. markii aan damcay inaan ka cudur daartana waxaan xasuustay weekendkii ay dhimatay kii ka horeysay ayaan waxaan ka wada hadlaynay program ah mar walba waxaanu sameynaa golaha isu taga haweenka Soomaaliyeed oo aniga iyaduba aanu ka midnahay iyo gabdho kaleba 16 cisho ee ugu dambaysa bisha November ayaa internationally waxa la sameeyaa program magaciisa la yiraahdo ololaha ka hortaga dhibaatada dumarka waa iska caan oo sanad walba la sameeyo marka weekendkii ay dhimatay kii ka horeeyay anagoo ka wada hadlayna ayay waxay tiri waxaan jeclaan lahaa inaynu ka wada hadalno gabdhaha oo waliba aynu sal uga dhigno maahmaahda ah dhiigeeda malihida dhaqankeeda leedahay marka anigoo taatiigsanaya jecelna maaragtay wixii aan wadnay inaan sii wadno ayaan really jeclaaday inaan programkan ka qayb qaato marka mawduucayga caawa oo aan cinwaan uga dhigay waa ina ayo waxaan rabay waxyar qosla inaan idin tusan laakiin projectorkii ma yaala caawa waa ina ayo marka horta dumarka Soomaaliyeed ma siman yihiin midda guriga joogta midda wadanka joogta midda shaqada ku maqan midda qurbaha joogta marka gabadha la yiraahdo waa ina ayo jawaabta ka soo baxda laba si baa loo isticmaalaa marka waxaan rabaa inta aan maaragtay hadalkaygan yar caawa dhamaysanay inaad ku fikirtaan hadalka ah waa ina ayo marka gabadha la yiraahdo waa ina ayo midna waxa laga yaabaa inay albaabo badan ka xidhmaan midna waxa laga yaabaa albaabo badan inay u furmaan inagoo mar walba isugu soo hadalku uu isugu soo biyo shumanayo ereyga sinaanta markii la yiraahdo Soomaali siman dadka qaar waxay ku leeyihiin oo kale markii hore miyaynan sinayn su'aasha waxaan rabaa inaan isweydiiyo because su'aal walba jawaab xalkeeda iyo maxay tahay su'aasha naftirkeedaba maskaxdeena ku jirta marka qof kasto Soomaaliya bal hay isweydiyo dadka guriga jooga ama shaqaalaha noqdaan ama caruurtaada ha noqdaan ama kuwa la shaqeysa ha noqdaan waliba dadka aan wadankeena ku soo arkay anigu wadanka waan tagaa markaan waqti u helo waxaad isweysaan dadka aad la macaamilooto ama shaqaalaha guriga ku jooga ama dadka aad mas'uulka ka tahay si sinaana ma ula dhaqantaa horta ma siman yihiin waayo hadaynu really su'aashaas si saraaxana isu weydiino jawaabteeda waynu helaynaa iyadoon cidiba inoo sheegin marka ilaahay khayras iyo sheekhaaba horta ka dhawaajiyay xagga diinta marka la eego shacabka Soomaaliyeed guud ahaan way dulmsan yihiin waliba arrimaha dumarka markaanu anagu ka hadalno maadaama aanu u leenahay gole uba sameynay inaanu arrimaha dumarka ka hadalno dadka qaar waxay yiraahdaan wadankii oo dhan baa burbursan maxaa dumar uga hadlaysaan waana run wadanka dhamaantii dadka jooga way dulmsan yihiin wadankeena Soomaaliyeed raggi baa xataa dulansan ninba ninku ka dhaqaaqayo waa la dilayaa markuu tago ama qabiilo iyo aanu u shaqo ku lahayn baa loo dilayaa ama maxay ahayd toole waxyaalo kale oo macna lahayn marka horta waynu isla qaranaynaa dhamaanteen wadankeena inay dhibaato badan ka jirto dhibaatadaana waxa sal oo ah qabyaalad ama qabiil si xun loo isticmaalo waayo qabiilka wanaaga waa loo isticmaali karaa sidoo sheekhu sheegay haday isku garasho iyo tacaaruf iyo qofka raximkaaga iyo qofka mas'uuliyadda kugu leh iyo abtiga iyo adeerka ay tahay marka qabiilkii qabyaalada dhibaatadiisu dadkii oo dhan wuu saameeyay dardaarankii nabiga kaleey salaatu salaam markuu xajjatul wadaa qodbadiisii ugu dambeysay qodba dheer oo uu jeediyay waxa kamid ahaa in bini aadanka oo dhan ay ka yimaadeen nabi aadan
iyo xaawo oo aysan jirin cid ka nasab wanaagsan waa maxay xajadul wadaa haddaad akhridaan maxay ahayd khudbadii ugu dambeysay nabiga calayhi salaatu wasalaam bixiyey inay bini aadamku isku mid yihiin in qof ka nasab wanaagsan uusan jirin quraankuna meelo badan sida sheekhu uu sheegay iyo aayado badan oo fara badanba waxay cadeynayaan in bini aadamku karaamaysan yihiin dhammaan rag iyo dumar marka haddaynu dad muslim sheeganayna aynu nahay taasi waa mid meesha inoo taala taariikh ahaan xalay program aan tegay baan wax yar u taabanayay idinkana aan idin sheegaya bay taariikhdu ka soo hadlaysaa dad badan baa wadanka u soo halgamay sinaanta isku dayay cadaaladda isku dayay laakiin aniga kuwa maaragtay aan caawa soo daliishanaya waxay tahay 1947kii SYL Somali Youth League qodobkooda ugu horeeyay ka dagaalamayeen wuxuu ahaa qabiil iyo qabyaalad iyo gobolaysi inaanu daba goyno marka sababta ugu weyn ee taa mandate uga dhigteenna waxay ahayd waxay arkeen gumaysigii wadanka soo galay ee wadanka qabsaday xirfadii ugu horeysay ee ugu weynayd oo isticmaalay waxay ahayd ee uu Soomaali ku kala furfuray qabiil iyo qabyaalad inuu qabiiladoodii iska soo horjeediyo kee fiican kee u shaqeynaya midkee ka sareeya iyo qabyaalad uu ku abuuray iyo nacayb uu isu geliyay ilaa ay markii dambe iyaga isku mashquuleen ilaa hadda isku mashquulsan yihiin oo hub la isugu dhiibay marka waa inaynu eegnaa waxani wax cadow inoo dejiyay ay tahay qabiilka iyo qabyaaladu oon ku baraarugna xataa dhalinyaradii isu timid in 1947 inay waxan ka dagaalamayeen xuquuqda bini aadanka marka loo eego idinkagama sheekeynayo waad ogtihiin diiniyan iyo maxay ahayd toole adduunka aynu marayna maanta waa in xuquuqda anagu aynu taaganay kulligan waanu cadhoonaa anagoo Kanada nimid Kanada waxaanu ka nahay dadka laga badan yahay minority baanu ka nahay inta waxaanu u dagaalamaynaa inaanu ka mid noqono dadka wadanka oo la mid noqono la xuquuq noqono marka wadankeena maxaad u malaynaysaa dadka jooga hooyada iyo gabadha Soomaaliyeed ee wadankeedii iyadoo joogta ay ku dhalatay xuquuqdeedu aysan la mid ahayn oo la sinnayn gabdhihii kale ee wadanka ku dhashay waa wax laga naxo runtii waana inaan ka gilgilanaa waayo xadiis baa xataa naftaada inaad la jeclaato waxaad naftaada la jeceshaa inaad dadka kale la jeclaato marka sinaan iyo cadaalad maxaynu uga hadlaynaa marka waa problem soo jiray SYL way isku dayday dad badan oo kale way isku dayeen qaramada midoobay ha u dagaalamaan human rights ha u dagaalamaan inaga afaaraheenii kalaaba naga batay maxaynu marka imika uga hadlaynaa aniga ahaan waxay ila tahay إلهي سبحانه وتعالى وحير كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر dadka aynu dhiiga la wadaagno aynu wadanka la wadaagno ee nala leh wayna la leeyihiin waan isla leenahay wadanka ee wadankoodii lagu maaragtay bahdilayo ama la leeyahay waad ka haybsooca lagu sameynayo haddii aynan ka hadal oo aynu ka dagaalamin micnaheeda islaamnimadeena shaki baa ku jira sababtoo ah ilaahay baaba inoo sheegaya waxaa tihiin qoom missionkaaga waxaa kamida ma aha kaliya waxa ilaahay ku abuuray soonka salaada cibaadadaada waxaa kamida inaad wanaaga dadka farto xumaantana ka reebto marka in cadaaladda iyo sinaanta dadka la faro oo loo sheego waa qayb inaga kamida cibaadadeena haddaynan sameeyna waa cibaado inaga maqano ilaahay qiyaamaha ina weydiinayo in maxaa ahayd toole dulmiga iyo haybsooca iyo kala sarraysiinta aan ka dagaalanana waa mid ilaahay ina weydiinayo haddaba Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal badan haan ma buuxsho markasta waxbaynu isu sheegnaa wanaagana waynu ka dheregsanay waxa hubaala inta aan idin sheegay inkastoo de quraanku leeyahay fadakir in dhikra tanfa'ul mu'miniin ay xusuusinayno iga tahay haddana waxa laga yaabaa badankiinu in wax cusub aanan imika idin sheegin oo intaaba aad ka dheregsantihiin aad ogtihiin waayahay haddaba maxay sidee inagoo intaasoo dhan og ay arrimaha wadankii maanta ka dhacaya ay uga dhacayaan marka waxaan jeclaan lahaa oo fari lahaa naftayda iyo naftiinaba caawa inaan codsi dhammaanteenba aynu wax ku dhaqaaqno waa iga codsi waxaan ka fikiray haddaad tiraahdo dadku wax ku dhaqaaqa ama adiga nimco ahaan aad wax ku dhaqaaqayso maxaad qabanaysaa okay waad ii sheegtay dhibkii wixii way jiraan maxaan qabtaa maxaan ku dhaqaaqaa anigu I like to be solution oriented
maxay ahayd toole marka dhowr qodob baan ka fikiray 7 qodob waxaa laga yaabaa dadka qaar already inay qabtaan haddaad wadana sii wad haddii aysan qodobadani kuwa aad hore loo sameeyay aysan hayna lagu dhaqaaqo marka 7 qodob waan kala qaaday midda ugu horeysa waa codsi aan u jeedinayo dhammaan dumarka Soomaaliyeed dumarkeena Soomaaliyeed markii la yiraahdo waa ayo kuwa waxaa jira laga sareysiyo kuwa kale waxaa la yiri 4.5 30% baa loo ogol yahay dumarka Soomaaliyeed inay baarlamaanka iyo dawladda ka qayb qaataan marka 30% loo ogol yahay inay ka qayb qaataan haddana waxaa lagu xisaabinayaa qabiilooyinka waaweyn dumarka ka socda anigu caawa arrimaha dumarka unba ka hadlay ragteedu waaba case kale completely meel kale ah marka 30% kaas imika lama dhammaystirin welina xataa golaha qolyaha iyagan xuquuqda dumarka Soomaaliyeed ka hadla waxaan u dagaalamayna list constitutionka Soomaalida 30% ku qoraa hala siiyo hablaha imika waxay marayaan I think 12% meelaha ama 10 marka weli hablaheeni waa ayaa lagu kala soocayaa marka hablaha ku jira baarlamaanka ama dawladda ama waxa loo baahan yahay waa inay garab istaagaan oo u heeliyaan sharafta hablaha Soomaaliyeed oo dhan alashan adiga lagu yiri waa ayo ama kursi ama wasiir ama baarlamaan ama maxay ahayd tala meel baa lagu geeyo waa ayo kama fiicnid hablaha kale ee waa ayo aan cidina ku xisaabsanayn ama looga dhaqaaqayo meeshay taagna marka dumar ahaan Soomaali ahaan mas'uuliyad baa ina saaran waana codsiga iga horeeya waa inaan garab istaagno oo u heelino sharafta gabdhaha Soomaaliyeed dhamaantood especially gaar ahaan kuwa la hayb soocay meel kastay joogaanba waa inaan u heelino hablaha qaxootiga ah ee markay line u soo galeen inay cunto qaataan wiilkii Soomaaliyeed ee cuntada siinayay ee translationka luqadda u sameynayay ayaa wuxuu yiri marta cunto inaan ku siiyo waa inaad askariga aniga ii maamula aad la saaxiibtaa oo waxaan u sameeyay hadii kale cunto laguma siinayo waa qoraal maanta internetka meel walba ku jira ee gabadhii markay diiday la dilay ama raashinkii loo diiday marka gabdhaha Soomaaliyeed waa inay taa ka hadlaan oo u heeliyaan because gabdhahaasi waa gabdha Soomaaliyeed hooyada inta la kufsaday aan dhakhtar haysan ee cid dhaqaalaysa aan haysan ee markay tiri waa la kufsaday la yiri maxay leedahay ragaysan ceebayne waa inaynu hooyada u heelina gabdhaha qaarkood waa ayo markii la yiraahdo oo gabadh baa la kufsaday waa ayo waxaa laga yaabaa haddii qabiilada waaweyn tahay dagaalka ka bilowday inay laba qabiilo isku baaba'aan laakiin haddii ay tahay hablaha xiriyaha qaxootiga fadhiya ee la hayb sooco ee aan qabiilkooda la qadarinayn waxaa laga yaabaa in la yiraahdo ceebteeda ma naga aamusto ragaysan ceebaynin marka mas'uuliyaddu waxay saaran tahay hablaha Soomaaliyeed inay taa ka hadlaan baarlamaanka iyo dawladda dadka ku jira rag iyo dumarba waa qodobkayga labaad 6 qodob aan idin sheegay waxaan u soo jeedinayaa horta in la bilaabo ololo oo horta ololaha ay ka bilaabaan dood ah in dood la furo ah hayb soocani horta wax wanaagsan aysan ahayn dambi inuu yahay waa in constitutionka lagu daraa waayo dadka minority-ga xaqooda in la daafaco Canadianku way leeyihiin meel walba waa lagu qoraa marka waa in horta lagu daraa constitutionka wadanka waa in lagu daraa waa in guddi loo xil saaraa ka hadasha arrimahan waa in la sameeyaa number dawladdu waa inay samaysaa iyo dadka dawladda mas'uulka ka ama baarlamaanka fadhiya number ay soo wici karaan gabdhaha markii la xoogo ama la farxumeeyo cid walba ha ahaato ee aan cidina daafacaynin waa in la helaa meel ay ku soo higan karaan oo isla markiiba ay caafimaad keenan number meel walba ku sharaxan waa in la helaa anagu de Canadianka daanahay waa qof waliba yaqaan caruurta la baraa maalintii kindergarten soo galaan waana in la sameeyaa shaqo abuur waxyaalaha dadka maskaxda looga qabsado waxa kamid ah mahmaha waxa jirta qofkan quudkiisa hanan karin qaraarkiisa ma hanan karo marka hadii iskuulkii laga reebay oo aan horumarkii la gaarsiin weligeed waxay ahaanaysaa inay adiga dhulka ku xaaqda ama ay booyaysa ahaato ama ay waxa sameeyso laakiin maanta gabadha hadii chance la siiyo waxa laga yaabaa inay kuwa kale ka karti badan tahay
waana in loo sameeyaa madal ay ku hadlaan ma aha mar walba inaanu niraano dad hablaa jira la hayb sooco annagaa u hadlayna maya iyagu waa inay isu hadlaan waa in la helaa madal la keeno oo iyagu ay waxa ay dhibaatada ay qabaan iyo horumarka ay doonayaan ay ku sheegtaan qodobadaana dad baarlamaanka iyo dawladdu am sure inay tahay waxay ku dhaqaaqi karaan marka caawa media badan baa halkan joogta dhammaan Soomaalidana waxaad moodaa iminka inaynu nahay dadka ugu website-yo badan adduunka marka ama isgaarsiinta dibadda joog ama ta gudaha joog mas'uuliyad waxa aan saaraya oo aan ka codsanayaa dhammaan walaalaha maaragtay isgaarsiinta haysta in ay ka bixiyaan barnaamijyo taxana ah oo wacyigelin iyo baraarujin ku sameynaya xaaladda ay ku sugan yihiin gabdhahaasi oo iyagu u noqdaan cod ay maxay ahayd toole soo bandhiga hawlahooda kana hadla cidii iyaga dulminaysa culimada waxbaan weydiisan lahaa sheekhuna waa ka hadlay ma sha Allah waxaana filayaa dhammaan culimadoodan inay ka hadlaan culimada wadankii joogta waxa fiicnaan lahaa inay fadwo ka soo saaraan really waliba sheekha inta uu sheegay waaba horta inoogu filan fadwo oo ah inay waxani haybsoocu tahay wax xaaraana taana ku dheeraan maayo iminka waxyaalo badan baa wadankii kala daadsan dawlad goboladii u wada talisana ma jirto xoogga ugu weyn ee iminka wax lagu saleeyo ama wax lagu doortaa waa oday dhaqameedka marka dhammaan salaadiinta iyo oday dhaqameedkana waxaan u soo jeedinaynaa codsi ah in ay iyagu intay shiraan ama laf ha u shiraan ama magaalo ahaan ha u shiraan ay go'aan wada jira ka soo saaraan cambaaraynta haybsooca waliba anigu waxaan ka danqanayaa xagga dumarka raggu deeteedu waaba mid kale ah waxaan ku soo gunaaninayaa hadalkayga caawa in qof kasta oo inaga mid ah ama qodobadan ku dhaqaaq ama kuwa aad hindisto ku dhaqaaq maalinta qiyaamaha ilaahay weyna su'aalayaa waliba hablaha dhibaatadooda weyna su'aalayaa marka qof kula mid ah adigoo kala ah inaynu ka aamusno haybsoociddiisa iyo dhibaateyntiisu wax bannaan ma aha inagu waxaynu jecelnahay sinaan waxaanu rabnaa si cadaalad ah in loola dhaqmo marka inagu waa inaan dadka sinaanta la jeclaanaa si cadaaladana ula dhaqanaa marka si aan u gudano waajibka ilaahay ina saaray waa inaynu joojinaa haybsoocinta horta inaga nafteenu waa inaynu completely joojinaa it's a personal decision and ku fakarto tiraada maanta wixii laga bilaabo waxa aan sida aan dadka ula dhaqmayo ama gabdhaha shaqaalaha ii jooga ula dhaqmayo ama anigu cidda aan xafiiskayga ka shaqeyso ula dhaqmayo wax dambe horta haybsooca ma jiro si marka waa inaynu taa ku dhaqaaqnaa waana inaynu ku dhaqaaqnaa arrintaas si aan ugu gogol xaadhno dumarka khaasatan gabdhaha la haybsoocay in ay ka qayb qaataan dhismaha wadankooda oo ay helaan included noqdaan si aan u hubino dhammaan caruurta Soomaaliyeed wiil iyo gabarba inay u helaan waxbarasho iyagoo loo eegayn haybtooda ayo waa waajib inaga ina saaran inaynu caruurta dhammaan wax barno iyo si aynu u dabargoyno dumarka Soomaaliyeed dhibaatooyinkooda ay sheeganayaan waliba kuwa ku jira maxay ahayd toole xariyaha qaxootiga إلهي سبحانه وتعالى وحيري وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعثمان إن آيات معنى هذا جود is Somali سمن مركان مقلي واحد سلا هاي إلهي وواحد أديك كوس صادرة سببته وواجب قف كستو مسلنا إنه قبته مركا وحي وناج قف بلعبه أنت إنه ده لهين dadkan bilaabay ujeedadoodu maxay tahay maxay u sameeyeen inaga ujeedadeenu maxay tahay maadaama ujeedadeenu ay tahay sinaan iyo cadaalad wax inaga ilaahay ina farana ay tahay waa in wax kasta oo wanaaga aynu ka qayb qaadanaa oo aan dhowrnaa sida aayadu ay sheegtay wanaaga iyo wixii wanaagsan ba inaan ka maxay ta qayb qaadano ee dambiga iyo colaadana inaynu iska yareyno marka waa inaynu ka shaqeynaa sinaanta iyo cadaaladda si aanu u sugno nabadgelyada iyo xuquuqda dhammaan haweenka Soomaaliyeed si shakhsi walba uu u helo
meel uu wax ka barto ku noolaado isagoon ka walwalaynin nabadiisa iyo caafimaadkiisa marka I think hadalku biyo Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo meel sugan bay isugu yimaadaan biyo meel godan bay isugu yimaadaan marka dadka qaar waxay ku leeyihiin waa hawl weyn meel laga bilaabaa ma jirto marka arintu waxay isugu soo biyo shabanaysaa adigu shakhsi ahaan wax kastoo jeceshahay nabadaad jeceshahay cadaaladaad jeceshahay si maxay ahayd oo la siman inaan qofna laga hoosaysiin baad jeceshahay inta adigu aad jeceshahay adna dadka kale la jeclo kuna dhaqaaq waana mahadsantihiin laakiin hadda waxaan soo dhaweynayaa saaxiibkay kale professor Cabdi Kuusow oo runtii laftirkiisa caawa aan idinla hadlaaya waana idin sheegi doonaa isaga awoor lagu siiyay caawa awoorkiisa ayaa isaga iyo professor Eno lagu siin lahaa Las Vegas oo runtii maanta 12 ayay ahayd in la siiyo awoorkaasi tod laakiin wuxuu ka doorbiday inuu Soomaali saman ee ka dhacaysa magaalada Toronto uu diyaarad u soo raaco oo ka soo qayb galo awoorkaasi todna wuxuu ku saabsanaa waa narrative research award oo runtii ay bixiso Marine Awards ayaa la yiraahdaa awoorkaasi todna marka runtii Soomaali saman qiimaha uu leeyahay waxa waaye Amin Caamir nooga soo qayb galay Sheekh Abubakar nooga soo qayb galay Nimca noo timid professor Cabdi Kuusow oo runtii laf dhabar u ahna waa nooga soo qayb galay marka aan soo dhaweeyo hadal badan ma hayo professor Cabdi faliya tafadal thank you very much walaal aadi aad u mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mahad alle kadib horta waxaan rabaa in aan aad mahad idinku celiyo waqtiga aad soo qaadateen oo muhiimka ah oo cawada aad ka soo qayb gasheen barnaamijkan iyo sida aad noo sharafteen si aan arrimahan Soomaali siman uga wada xaajoono waxaan kaloon mahad u celinaa shakhsiyaadka oo dumar kale oo rag kale oo dadka beec mushtarka magaalada leh oo culamaa u diinka leh oo hab dhaqaale iyo si kalaba noo caawiyay si arrintan aan caawa magaaladan inta aan u imaano aan idinla sheer garayno arrimaha Soomaali siman ku saabsan waad mahadsantihiin taas waan u soo noqon doonaa waxaan u isticmaali doonaa arrin oo Naciima Caliba ay soo taabatay early oo ku saabsan fahanka aad ka fahansan tihiin adinka naftiina arrinta minority-nimada waddankan si aad arrintaas inta aad u fahantaan oo waddankiini naftiini inay u roon tahay aad ogaataan oo arrintaad aad isticmaashaan eventgan oo Axmed Xuseen oo baarlamaanka ku galayna ay calaamad tahay idin tusayso in aad fahantaan arrintaas waana ku soo noqon doonaa doo Ilaahay yiraahdo haddaan cawada idin iraahdo Soomaaliya waxay ku jirtaa 20 sano la soo dhaafay ilaa maanta xilligii ugu xumaa ama ugu muruga badnaa marka la fiiriyo taariikhda Soomaaliya oo dhan oo ay suuragal tahay in ay dhowr kumaan sano meesha aan degannahay aan ku nooleen calaamadda dhibkaas ama murugadaas waxaad ka dareemaysaan waxa aan aniga aan u arkay afka Ingiriiska waddankan aad u dhalateen ama aad ka mid tihiin ay u yaqaanaan total resignation yani isdhiibid guud ahaan oo dadka Soomaalida ah totally ay isdhiibeen isdhiibka waxaa lagu jeedaa in ay wixii markii ay noqdaan rajo darro oo raagtay rajo darrada markii ay raagto waxay sameynaysaa qofka ibna aadinka totally in uu yiraahdo waxba kama socdaan meeshaan therefore uu iskaga istaago arrintii
taas oo xitaa keentay is-aamin darro oo baahsan oo qofka Soomaaliga ah ay ku adkaato qofka kale oo Soomaaliga ah in uu aamini waayo sideedaba haddaad ula jeedo ama wax tallaabo aad qaado tallaabadaada ula jeedo qabiil ayaa ka hooseysa macnaheedu wax kale oo ka hooseyn kara ma jiro ma aha Soomaalida in ay dad qalbigooda xun yahay ay yihiin laakiin system markuu uu 30 sano saas ku haayo oo saan iskugu wareeganayo then wixii fikirkii ayaa wuxuu iska noqonaa fikir joogta ah calaamadda problemkan ama murugta Soomaalida haysato waxaad ka dareemaysaa boqolaalka kun oo Soomaalida ah oo u dhaxeeyo baahi xero qaxooti ama dabaab ha ahaato ama kaakuma ha ahaato iyo cabsi joogta ah ee wadankii ka jirto intaas inta u dhaxayso waxay ila eg tahay badda un in la galo kulli waana galnay moogtahay naciimo cali ayaa hadaayana taabatay calaamooyinkaas waxaad ka dareemaysaa hooyada Soomaaliga ah oo xerada qaxootiga joogto dabaab ha ahaato kaakuma ha ahaato oo habeenkii 24 saac soo jeedo oo aan kala sheegi karin in gabadheeda la xoogi doono iyo in kale macnaheedu calaamad aad u xun waay macnaheedu calaamooyinkaas waxay ka muujisan tahay magacii Soomaali oo dhan oo sameysmay adduunka oo dhan hab looga arko sidiisaba magacaas hadduu xumaaday aniga kulley ma u maleynay qof Soomaali inuu dhihi karo maya aniga kuwaas kale oo ka xumaaday aniga ma aha kuwa iga xumaaday macnaheedu magacii hadduu xumaaday waa sheer gareynay kulligeen magacii waana naga xumaaday kulligeen waxaan kaloo aan ogahay oo adinkan aad dareensan tihiin dhibkan meelo badan uu ka yimid anigu hadda ma dhahay dhibkan waxaan ku ogahay meeshuu ka yimid ma ogi dhibka meelo badan oo ka yimid wuxuu ka yimid dhib oo dibadda ah dhib waxa uu ka yimid wadankan aan ku noolnahay oo Canada ayaa laga yaabaa inay dan gooni iska leedahay oo dhibka uu ka imaan karo dhibka wuxuu ka imaan karaa dawladda Mareykanka dan ama interest ay leedahay dhibka wuxuu ka imaan karaa dawladaha dariska nala ah dan gooni ay leeyihiin dhibka meel kasta ayuu ka imaan karaa waa un wax oo part oo kamida waay macni dhibka wuxuu kaloo ka imaan karaa gudaha wuxuu uga imaan karaa mar oo ay tahay dagaal oogayaal dad lagu magacaabay mar oo jabhada dad lagu magacaabay mar qabaa'il dad lagu magacaabay marba magac aan u sameynay ayuu dhibkii oo iska noqon karaa macni laakiin su'aasha waan fahmay dhibkii dad kalaaba noo keenay xataa naga soo qaad laakiin dadka Soomaalida ah waxa u bannaan waxay tahay horta dhibka meel kastaba ha ka imaado annaka inaan iswarsano annaka maxaan ku daroynaa dhibkan macnaheedu adiga haddaadan dhihin anigi dhibkii maxaan ku darooyaa maxaa aad inteed ka bilaabaysaa adiga macnaheedu soo waxaan rabnaa inaan dhahno bal dhibkan intuu ka imaanayaa sidiisaba macnaheedu annaka maxaan ku daroynaa macnaheedu أنا وحن إسلام هاي dhibkan wuxuu ka imaanayaa wax aan dareemayo in ay yihiin wax Soomaaliya ka jira oo ah sinaan aniga aan dareenkayga u yahay sinaan dari baahsan oo aad u weyn aadna u qoto dhibka kaasuu ka yimid macnaheedu wadankan aad ku nooshihiin dareenka wuxuu yahay wadanka sida kaliya oo ku hormari kara waxay tahay in
dadka waddanka ku nool nooc kastaba ha ahaadaano oo ay karaamo helaan macnihi so sinaan daridaas ayaa jirto ayaan u malaynaa marka taas ayaan rabaa in aan cawada aan ka sheekaysano haddii uu ilaahay yidhaahdo horta hambalyadaas oo ah in aad awood u hesheen in aad nin Soomaali ah uu ka qayb galo baarlamaanka federaalka ee Canada maanta taas sababta aad ugu faraxsan tihiin anna aan ugu faraxsanahay waxay tahay waxa waaye dariiqii bilawgii oo aan ku talagalnay haddii aan nahay dad Soomaali ah haddaan nahay dad Afrikaan ah haddaan nahay dad madow haddaan nahay dad Muslim ah in aan waddankan ka nahay minority halgankeennana uu yahay hangan oo annaka inta aan isku wada duubanno dad inta aan dooranno ay ka qayb galaan baarlamaankii oo codkeenna ku hadlaan oo karaamadeenni noo sheegaan waa taas marka waxaan rabaa cawada inaan ka hadlo sababta aad u garan weyseen haddaad Soomaali tihiin awooddaas iyo aydiyadaas nafteeda waxa Soomaaliya looga baahan yahay sababta aad u garan weyseen ayaan ka hadlaynaa waa idin cudurdaarka wuxuu yahay waxa aan sheegayno dhan reer Soomaali siman ma loogu talagalin in qofna lagu xumeeyo waxa loogu talagalay in Soomaali lagu dadaalo si ay hore u marto therefore wax kasto aan sheego waxaan rabaa inaad qalbi furan aad ku soo dhaweysaan oo aad dhageysataan oo wax xumaanan ay ku jireen dhibka waddanka ka taagan Soomaaliya simply wuxuu yahay waddan la yiri Soomaalida waxay kala tahay dad Soomaali ah dad Soomaalinimadooda ay dhiman tahay iyo dad aan Soomaali ahayn sideedaba waa kaas waddankii dhan ayaa waxaa loo kala qaybiyey saddexdaas waddankii haddii saddexdaas loo kala qaybiyey oo la yiri dad aan totally Soomaalinimada dhiman tahay ayaa jiro dad oo totally aan Soomaali ahayn ayaa jiro haddii la yiri then barnaamijkii sidee marka sidee barnaamijkii then looga fikiri karaa in uu noqon karo wax oo ama diinteena islaamka ku base garaysan ama moral ku base garaysan ama any haddii waddan uu leeyahay intaasu milyan oo Soomaali ah ayaa totally ka qaybgalkii siyaasadda ka qaybgalkii dhaqaalaha ka qaybgalkii bulshada aan u diidnay haddii uu leeyahay sidee waddankaas u hormara taas waa su'aasha ugu horeyso aan isweydiinayna macnaheedu waxaa la yiri dad Soomaalinimadooda ayaa dhiman awoordiga idin sheegay meesha ay ka imaatay 15 sano ayaan ku mashquulsanaa arrimahaanayto Soomaalinimadoodii ayaa dhiman ayaa la yiri waxaa la idin sheegay sheekooyin oo u eg sheeko xariir oo ah marba say rabtaa u gadoonto midaa geed un meelow ka soo dhacay ma ogin geed un buu saarnaa marka waxay iska noqotay inuu geed ka soo dego marka qaara hoosta joogay kuyo korkooda ku soo degay waxaa la idinka sheekay waxaa la yiri laba nin oo walaalaha ayaa israacay midaa yacni bakti cunay odaygiya wuxuu yiri hadaa baahataan kulay waa iska cuni kartaan laakiin hadaa gurigiina tagtaan yani waa inaa ismatajisaan so that si yani aad isu nadiifisaan kii yaraay aad diiday iyo kii weynaa yani ma kala ogi mid unbo ahaa kii yaraay aad diiday ama kan weynaa then markay gurigii tageen kii kala kan kala kashfay oo yiri maya walaalkay waa diiday inuu ismatajisiyo aabihiina wuxuu yiri maanta wixii laga bilaabo adiga iyo kuwa dhashayba barnaamijkiina waa iska si kale dad kaloo Soomaali ah oo milyan ah ayaa waxaa la yiri adinka waxaad tihiin Afrikaan adinka waxaad tihiin adoon adinka waxaad tihiin boon adinka Soomaali ma tihiin macnaheedu laba qof ma aha waa millions
marka maxay tahay ulajeedada haddii la yiraahdo Soomaali nuskeeda ama Soomaali ma tihiin haddii la yiraahdo siyaasadii dhaqaalihii mujtamacii bulshadii kama qayb galaysan haddii la yiraahdo maxay tahay ulajeedada su'aasha waxay tahay haddii dadkii nuskii kulligood inta xagga la fariisay oo la reebay okay yaa wadankii horumarinayo remember dadkan la reebo dadka naftooda sancada iyo teknikada haayo waay macnaheedu yaa isee wadanka marka loo horumarina ulajeedada waxay tahay haddii dumarkii lagu daray oo 50% meeqa soo hartay maxaa soo haray adiga soo aniga iyo gruubyada that's the runtii waa taas yaa soo haray waa su'aashi moogta okay dumarka nafteena naciima noo sheegtay sheekada dumar leema joogto macnaheedu dumarka projectiga waxbay kaga jiraan macnaheedu موقته دمر كسوماليدا دت كليلية هاي سومالي متين أما سومالي مكوجرتان ويكقيب قالنا هاي كنفتو سوما مثل دمر كمكوجران معناه كل جن واكوجرنا سوما دمر كانوا ويكوجران معناه أوكي so مرة بإن كوسي دار مرة شاكدي ماشي مرة شاكد هذا أي مرة يسو وحاوي ودنكي محور مراي سيدي سب وحور مري كراملا وحن إسلام هاي therefore dhibkan sida looga baxo maxaa la sameeyaa mid kale oo intaan taas garin aan idin dareeno haddana yani show thank you very much naciimo ayaa taabatay by the way marka adiga aad isleedahay qof ayaa ka liito marka aad isleedahay xasuuso qofka aad isleedahay wuu ka liita dhibka haysto exactly adna kaasa ku haysta macnaheedu ma fahamtay هدي أو برنامج أو جرية هاي واجرنا هاي كلين يعني هدي أديك أتجارتد هير إن أوقف كاليتو remember أديك أدنى وحباكا هالليسن نون قف كليري والدين هكلي إني وحكا هالليسين أدنى وحباكا هالليسن in other words أمدي أردن أيا وحكا هالليسين معني هان سمعنا أمرك شاكدي أيا دن ولجديد أي تهاي إن أن إسكودينو برنامج كان إن أن بلاونا سومالي سيمن ولجديد سيمبولي waxay tahay waxaan rabnaa in aan aragno wadan qof kasta oo Soomaali ah group kasta oo Soomaali ah jufad kasta oo Soomaali ah Sheekh Abuukar Ilaahi cimrigiisa ha raajiyo wuxuu noo sheegay waxa kaliya jiro karaamada Ilaahay bixiyay way un macnaheedu wax kale ma jiraan so marka su'aashi marka waa taas maxaa aan sameynaa way marka waxaan isleeyahay waxaan rabnaa inaan aragno wadan oo qof kasto Soomaali ah jufo kasto Soomaali ah qolo kasto Soomaali ah ay isleedahay in ay ka mid yihiin ummadda Soomaali ay wadanka wax ka leeyihiin ayagoon qofna ka heebaysanaynin macnaheedu aniga hadda i warsataan maxaa waxaan u sameynaysaa aniga haddii aan karaamo raadino ani waxaan rabaa in qof kasto Soomaali oo ani karaameeyo anna waxaan rabaa qof kasta inaan karaameeyo haddii dadkan la karaameeyo anna karaamadeyda waa helay haddii la karaameeyo adiga karaamada kulligeen karaamadeenni waa helnay macnaheedu haddii kulligeen karaamadeenni aan helnay maxay tahay idinka projectiga kale aad ku jirteen macnaheedu Soomaali dhan haday karaamo heshay idinka ulijeeda kale ma leeyahay hadda ulijeeda kale leedihiin dan aniga ma ogi marka waxaan isleenahay qof kasto oo Soomaali ah oo dareemayo in asaga la yiri ama Soomaali matid ama Soomaalidii habkana xoogaa yar lagaaga leexiyay waxaan rabnaa in aad nagala soo qayb gashid in aad istaatid in aadan ka aamusin in aad ka hadashid in aad geesinimo aad uga hadashid haddaadan ka hadlin qofka hadli doona ma jira macnaheedu waa inaad adiga ka hadashaa macnaheedu waa qaybtaas qaybta kale qof kastoo Soomaali ah oo asaga aan isleen adiga groupkiya tahay oo nin Soomaali oo wax bartay oo aqli leh oo moraal leh aad tahay waxaan rabnaa inaan adna aad tiraahdid anna waa diiday macnaheedu
kulligeen haddii aan diidno waxaan u malaynaa soomaalida aan raadinayno soomaalidnimada sharafta leh oo aan raadinayno kulligeen waa gaaraynaa waad mahadsantiin waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadkii soo qaban qaabiyay xafladan oo qiimaha badan iyo dadkii volunteer ahaan u shaqeeyay qaban qaabintii iyo isu keenitaanka dadkan wanaagsan oo caawa isu yimid professorkana si gooni baan rabaa inaan ugu mahad celiyo hawsha uu dadka Soomaaliyeed intaas u hayo Amin Caamirna Edmonton baa isku keen dambeysay marka soo dhawo magaalada Toronto waqti fiican inaan is aragno doorashada ka bacdi annagoo wada faraxsan inaan noo timaadid aad bay maaragtay u fiican tahay barnaamijka oo iskugu yimid oo sinaanta Soomaalida waa wax runtii qof walba oo Soomaali uu fahmi karo maanta muhiimadeeda sababtoo ah sinaan la'aashada iyo fikradaha oo dhaliyay in dadka la kala qaybiyo la yiraahdo qofka kale anaa ka nasabsan iyo waxyaalahaas waa waxa maanta Soomaali meesha ay taalo waxa dhiga waay sinaanshada laga hadlayo Soomaali kaliya ma looga baahna meel walba ay Soomaali joogtaa looga baahan yahay haddii marka aan annaga example u noqon karno Soomaalida joogto adduunka hadday joogaan Soomaaliya hadday joogaan wadamada kale waa wax wanaagsan taasna example waxa uga soo qaadaya campaignkii aan sameynay runtii markaan ka hadlayay concept iyo action taas way waxaan ka hadlayay oo ah marna waxa ka hadli kartaa idea marna waa fulin kartaa dad badan waxa jirto isku bartay campaignkeena oo isla shaqeeyay oo ka dhashay walaaltinimo cusub iyo aamin inay dadka is aaminaan ay gartaan inay wax iskugu imaan karaan barnaamij oo maaragtay oo loo wada sameeyay inay inta iskugu yimaadaan ay ku dadaalaan u adkaystaan ilaa ay ku guuleystaan runtii waa wax reer Canada credit ay ku leeyihiin waxaana jeclaan lahayn walaalahan oo wadamada kala joogana inay naga cibri qaataan sababtoo ah adkaysigaas iyo barnaamij in la iskugu yimaado oo la fiirinin ma aragtay waxyaalahan aan niraahno waa ku kala duwannahay inkastoo aanan kala duwanayn anaga dad Soomaali baan wadanahay oo isku diin leh isku luqad leh isku dhaqan leh barnaamijkaas oo kale in la iskugu yimaado oo la isla fahmo muhiimadeeda oo wax walbana la geliyo oo la iloobo shakiga iyo aamin darada oo finally lagu guuleysto waxaan aniga u arkaa horumar aad iyo aad u weyn waxaana jeclaan lahaa horumarkaas inuu noqdo wax credit u noqdo Soomaalida Canada joogto sababta qayb libaax bay ka qaateen inkastoo ummado kale ay campaign ugu la jireen inay doortaan taas waa mid secondly waxyaalaha dadkeena ay u baahan yihiin qurbaha jooga inay ogaadaan waxa waaye haddii qofka Soomaaliyeed oo qurbaha jooga uu rabo niyad ahaan iyo maxaan ku leeyahay daacad ahaan inuu wadankiisa ku laabto u shaqeeyo uu horumarka wadankaas ka shaqeeyo uu sacrifice galo wuxuu mudan yahay in la taageero oo wixii la qaban karana la qabto loona duceeyo laakiin haddii uu qurbaha ka tagayo uu dhibaato u kordhinayo dadka already dhibaataysan taas waxa ka fiican inuu qurbaha ka tagin sababtoo at least qurbaha systemka meeshan jiro habba loo helaya hadduu ummadan wareeriyo waa la xirayaa maxkamadaha jiro police baa jiro laakiin Soomaaliya waxa laga yaabaa inuu culays cusub ku abuuro marka waa inaan annaga naftigeena haddaan qurbaha joogno inaan ka xishoonin midka naga tagay oo dib u wado Soomaaliya inaan yacdii karno waay haweeneyda ama ninka ragga oo qurbaha jooga Soomaaliga ah oo dadkeena fi sabiillah uu shaqeynayo oo wanaagna ku soo kordhinayna inaan taageerno way taas waxaan ku keenay sheekadaas waxaan ku keenay xilka maanta aniga aan hayo waa xil community-geena ay igula xisaabtami karaan laakiin xisaabtaas waa inay noqotaa xisaab ku dhisan cadaalad sababtoo asinaashada uu professor ka hadlayay waxaa sal u ah cadaalad marka cadaaladaas way waxaan ka hadlayo haddii la leeyahay Soomaaliya hal caawiyo haddii la leeyahay dadkeena dhibaatooyinka haysto
waxa laga qabto waa in laga yimaadaa meel oo sinaan iyo cadaalad ku base galaysan laakiin qof aan ognahay oo qurbaha ka tagay oo dib dadkeena u kordhinayo in aan bari labadeena iskula xisaabtano inaan dibka uu dadkeena ku hayo inaan ku caawino ma aha waana inaan labadaas kala saarnaa insha Allah waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka barnaamijkan wado sinaanshada Soomaalidana ma aha wax fudud sababtoo ah cadaaladda haday timaado ilaahayna wuu noo naxariisanayaa cadaaladana waxa daba joogto horumar iyo barwaaqo marka aad baan nigu rajeynayaa khayr insha Allah waxaana anigana waxaan diyaar u ahay wixii aan nigala qaban karo barnaamijkan insha Allah السلام عليكم horta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa Axmed oo daraad guusha helay inaan la kulmo saaxiibkay Axmed waa u hambalyeena mid kale waxaan u mahad celinaa asxaabta soo qaban qaabisay barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad loogu baahan yahay in badan qalbigayga wuu ku jiray dadka soo qaban qaabay waxaan leeyahay hambalyo caawa barnaamijkan markii la soo sheegay anoo jooga magaalada Edmonton anoo jooga ayaa barnaamijkan waxa telefoon ii soo diray Xasan saaxiibkay Xasan iyo Yaasiin habeenkaasi markii la soo hadleen barnaamijkan oo Soomaali siman inay dhici doonto ilama ahayn ba aniga barnaamij sidaas oo noocaas laakiin habeenkii ay ii sheegeen subax habeenkii waan seexay waay farxad awgiis hatta waxaan la seexay waay waxaan ka baqay riyo inay iga noqoto haddaan seexdo Soomaali siman marka waxay ka timid macna cadaalad darrada dawlad kasto Soomaali ka dhalata waxay raadinaysaa xal ay raadinaysaa halka waxa ka horeeya marka xaq in la helo horta dad badan xaqooda maqan dad badan la liiday oo macnaha oo lagu tuntay oo Soomaalinimadooda xataa loo diiday inay Soomaali yihiin marka baarlamaanka Soomaaliya qof in la yiraahdo haafa tahay qofna la yiraahdo waa qof dhanaa tahay marka waxaan diinteena ogolaan in baarlamaanka 100% Soomaali waa muslim haddana see ku ogolaadeen in qof la yiraahdo nusa tahay wax ajiib waay marka waxaan naga maqan xaqiya naga maqan xaq waa 3 xaraf haddii xaq la waayo gadaal uu akhri 3 xaraf maxay noqonaysaa kaasaan ku jiraynaa marka waxa kaloo jirto maalin dhaweyd dad badan macnaha nagu magacaabeen oo 4.5 aan loo yiri okay maalin dhaweyd xildhibaano Soomaaliya ka soo baxay ayaa yimaadeen North America waxay sheegeen in qof oo ama Ethiopian ah haddii 7 sano joogo jinsiyadu qaadana okay number ko noqona anuga 4.5 bal number haloo sameeyo kuwaas mas anu kan noqonayna ana 5 ki iiga noqonayna marka dhibaatada jirta waxa waxyaalo badan anaga maqan marka xaqi waxaan ku gaari karnaa waa inaan horta baarlamaankeena laga dhaadhiciyaa oo la yiraahdo dad nus ma jiro hadda wiil ciyaalkaygan soo waday waxay yiraahdeen maxaa jiro Soomaali ala simaayir markaas ay qaar oo nus ma jiray marka dhibaatada jirta waxa naga haysataa macnaha aqoon darro miya jaahilnimo oo ka 20 sano cudurkana haysto waa kaas waa garan la'aanahay macnaha waxaan ku garan la'aanahay war waxaan aan ka gudubno oo diinta aan raacno diinta ma dhigaysaa maya misha tan diinta aan raacno hadda Sheekh Abuukar wuxuu ka hadlay macnaha in waxaan qalad yihiin waxaan ka baryaynaa culimada inay dadka u sheegaan Soomaalida si Sheekh Abuukar hadda uu macneeyay in qof walba loo macneeyo in qof macnaha diinta inay dhigaynin kala sarreyn oo dadkii bini'aadanka Ilaahay wada simay anaga haddaan nahay Soomaali macnaha
waxyaalo badan ayaan ku qaldannahay oo Soomaali oo aan aragnay aniga maalin walba waxaan toosiyaa dad baa ii soo dira email waxay yiraahdeen war adiga Soomaali ma tihid ee arrimaha Soomaali faraha kala bax marka qof dhulka ka soo baxay ma jiro horta Soomaali dhulkan waa la wada yimid Soomaali Soomaa qof cirka ka soo dhacay ma jiro qof walba wuxuu macnaha dhulkaas Ilaahay waray ayuu soo degay marka midaa ku dhahay dhulkan waa timid asiga xaguu ka yimid ha macnaha dhulka cirka buu ka soo dhacay dhulkana kama soo bixin waa uu ku dhashay si uu asaga ugu dhashay anigu ugu dhashay maalin Toronto anigu joogno ayaa mar horena waan sheegay waxaa dhacday dad baa islaamay oo islaan ayaa tiri ninkan Amiin Caamir miya markaas yiri ha waxay tiri Soomaaliya mood waaba gibil caday marka Soomaalinimada xataa waa la diiday marka waxa insha Allah waxaan rajaynayaa in barnaamijkan uu noo hagaago waa barnaamij fiican oo insha Allah oo daawo noqon doonto sababtoo 25 sano ayaa cudur la jiifnay Soomaaliya hadaan nahay marka waxaana noo keenay xaq darada dhibaatadana waxa waaye dad muslim waan nahay haddana waxaan galaynaa dambi oo markiin oo Ilaahay ogoleen oo dad kula dhashay walaalka ah haddaad tiraahdo nus baa tahay anigana waxaan ahay qof dhan macnaha waxaan arkaynaa inay xaaraan tahay marka Ilaahay ha nagu soo hanuuniyo dariiq fiicnaa marka aad baa u mahadsantihiin 10 mir la igu talagalay 10 mir Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh anigu uma maleynaa in hal daqiiqo wax ka badan aan qaadanayo mise labaad ay ugu badato marka hore waxaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan marti sharaftii iyo yacni ashqaastii qiimaha lahayd ee xafladan nagala soo qayb gashay waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa xildhibaan Axmed Xuseen Professor Kuso Cabdullaahi Sisman Amiin Caamir iyo Professor Xiirey iyo dhammaan dadka kale aan magacyadooda xusin barnaamijkan in fact waxaan u maleynayaa kiisii ugu horeeyay waaye inaugurationkan u taaganahay insha Allah kuma ekaan doono muxuu ahaa maantadan aan joogno insha Allah barnaamijkan kan ku xiga wuxuu ka dhici doonaa waqti aan fogeyn mid ka mid ah gobolada Mareykanka qorshihiisana waan ku jirnaa waliba waxaan jecelnahay kan inauguration buu ahaa laakiin ka in ay isugu imaan doonaan dadweyne iyo marti sharaf aad u qiimo badan oo dhinacyo badan kala yimid kaliya waxaan ugu talagalnay reer Toronto example-ka aan Axmed Xuseen iyo sida ay muxuu dadka reer Canada u abuureen wax aan isdhihi karno almost waxa waaye wax badan baan tusaale ahaan example ahaan u qaadan karnaa marka waxaan jeclaan lahaa hal kelmad in aan muxuu ahaa iraahdo barnaamijkan waa barnaamij runtii aan rabno inaan taageero u helno taageerada waxaan u baahanahay yacni taageeradiina u baahanahay taageerada dadweynaha kale oo Europe America ku nool marka reer Toronto ama Canada guud ahaan haddii aan heli karno dad arrintan knowledge gareeya at least 100 qof oo aaminsan arrintan in aan dhaqaajino inaan Toronto ka helno Mareykan kulli waxaan u maleynayaa in ka badan noo diyaarsan laakiin haddii aan reer Toronto ama reer Canada oo dhan 100 qof aan ka helno waxaan u maleynayaa malaayiin kale waa heleynaa insha Allah marka pledge-kaas waxaan u maleynayaa waa idin soo gaari doonaa through actually muxuu ahaa the website kan waxaan u maleynayaa somalisiman.com waaye meesha waa ka hilmaana dabcan somalisiman.com ama .org ama siman.so siman.so marka pledge-kan meesha ku jira at least haddii aan pledge-kaas helno dhaqaale kuma raadinayno just waxaan u baahanahay dad mabaadi'da aaminsan sida darteedna aan muxuu ahaa uga helno taageero dad kastoo Soomaali marka aad baan idinkugu mahad celinayaa ka soo qaybgalkiina mar labaad iyo mar saddexaad waana ku dheeraaday 2 daqiiqo aan ballan qaaday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxyaabo badan ayaan caaw ka dhageystay meeshaan maasha Allah
aadaan ugu faraxsanahay especially Naciimo gabaraan jecelaha waaye waxyaabo badanna waa in kula dardaarmaa anigu badanaaba ma ka hadlo public raadiyan ka hadlaa Muuse Kuulow Soomaalida waa jecelahay aadaan u jecelahay aniga gabar Soomaaliyeed ahay wadankana waa hore ugu dambeysay aan ka soo tagay waxyaabahan jecelahay Soomaalida inaan ku arkaan waxay tahay inaan iskaashano dhibaato kasta isku qabno colaad kasta oo naga dhaxayso dhib kasta oo na haysto inaan isu nimaadno oon fiirino waxyaabaha noo danta ah hadaa fiirisi wadankan noo dan maaha wadankan dhibaatooyin badan uu leeyahay oo aad u tiro badan oo la soo koobi karin waa ku dhibtoonay hadaan nahay especially haweenka waxyaabaha aan aragna waxaa ka mid ah inaan caruurta kaliya korsano inaan wadankan ku rafaadno inaan askari iska noqono oo maaragtay digtoonaa nagu jirto cuqubooyin badan waa jirtaa oo ragga Soomaaliyeed ay qaateen marka waxaan idin kula dardaarmayaa Soomaaliya meel alla meesha joogtiinba inaa sinaatiin inaa iska dhaaftiin waxyaabaha oo na soo baabi'iyay waxyaabaha wadankeena naga soo buriyay waxyaabaha maanta intana keenay oo maaragtay aan aad ugu tafaaruqsanahay waxaan kaloo hadana habeenkii ugu dambeysay oo Axmed Xuseen la dooranay aad aan ugu farxay oo arkay oo aniga umada badanaa ma ay arkeen laakiin ani aan u fiirinay habeenkii meesha waan joogay waxay ahayd Soomaali habeenkaas waa unite garayse and that's the key I saw that night and I was so proud of Somali community that night so proud because all the people standing there and you know have in their hand maxaan ku sheegaa calankeena Soomaaliyeed oo buluug ah oo quruxda badnaa and I always loved it waxaan ku arkay gabdho badan oo aqaano oo ka yimid different area oo different maxaan ku sheegaa community hadana oo barbar istaagay oo gacan isqabsaday marka qaladkan sameeyna wadankan wuxuu ahaa waxyaabo badan aan qalad ku sameeynay ibn aadankana sidiisa haduu caawinaad rabo qaladkiisa iyo admid gareeya qaladaad badan aan sameeynay hadda koorna waa ka sheegay raadiyaha qaladkii ugu weyn aan sameeynay waxay ahayd markaan raggeena banaanka wada dhignay anigu markasta ma baqo waa sheegaa that's the first biggest mistake aan sameeynay ahayd bavanti markii aan ogaanay oo nolosha loo macaynaysiin kadibna wiilasheena loo soo jeestay oo was difficulties marka Soomaaliya meel alla meesha joogtiinbo isku imaada hal meel ka soo wada jeesta dhibaatada idin haysatana meel uga taga ninka cadaanka ah haduu dhibaato kasta oo qaba ninka dariskiisa ah maalintii reality noqoto garabkiisu istaaga inkastoo ninkaas neceb yahay oo adduunku arkan hadana agtiisu istaaga soo u caawino waxaan jeclaan lahaa caawa aan arki lahaa aan jecelahay waligeena aan jeclaa in ummad Ilaahay la simo taasna adeeg ku fiican tahay ummad muslim hadaan nahana waa iscaawin hadaan iscaawino Ilaahay ilbaabadu noo fura aniga waxa Ilaahay ka tuuga ma waayo wallahi baan idin sheegay gabar kaliyeed oo ilmo karsata ahay fahanti waxaan Ilaahay ka tuugo ma waayo anytime aan Ilaahay u istaago salaad u istaago Ilaahay tuugo waa isiya waxa u baahana seasonku ugu seen waxay tahay qalbigayga nadiif qulubtaad markay nadiif tahay Ilaahay ilbaabadu waa ku fura marka Ilaahay ilbaabku wuxuu noogu furaaya inaan isxushmeeno haweenkuna haweennimadooda istaagnaadaan ragguna ragnimadooda istaagnaadaan mid kalena hadaan ummadda muslim oo Soomaaliyeed aan nahayna ragga inaad tihiin hoggaan bismillaahir rahmaanir rahiim markaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh oo runtii anigu markii hore xafladda kuma soo talgelin meel halkaan fadhinaa naloo sheegay waxaan markaa waa khasab waa tageynaa waana ka qayb qaadanaynaa waxaan ahayd inaan ogaano laakiin iyadaba aniga lagu soo celiyay marka waa waxa waa topic aad u fiican runtiina dadku marka la isku yimaado la jecel xoogaa yar in laga sheekaysto laakiin ficil ahaan wax loo fuliyo hab yaraatay ma jirto ashu marka waxa ku fiican tahay wixii in la raad raaxo lagana sheekayo la yiraaho waa la isu yimi marka wixii la isla gartay maxaa ka soo baxay mitaal waxa ka soo qaadaan hadda ka hor waxaan joogay Minnesota Minneapolis waxaan maraya conference weyn oo culimadu qabteen ayaa jiray
tiradu ma laha ilaa iyo waa markii ugu badneed baanu Soomaali isku timaado ilaa iyo 10,000 waa cagacgeynaysa sida lagu qiyaasay YMCA markaa aad u weyn baa waxaana la isla soo qaaday in maxaa inoo talaabaa leeyahay waa arkaynaa meesha wax inoo marayaan go'aan waxa lagu gaaray in Soomaalidu ay simantahay waxaan xustaa nin culimada ka mid ah wadaadaha inuu yiri laba wiil oo dhalay iyo laba gabdhood oo dhalay baa ii jooga intaba haddaan bixiyay yaa diyaar u ah wax xustaa waa loo istaagay waxa la yiri labada gabdhoodna waa ka doonay wiilashan gabdhaanu aanu siinayna arinta waxaan qabaa in halkii lagaga tagan qabaa waa hadii wax ka weyn ma jira markaas waa maya aashu marka ma aha inta hadal la isku yimaado lagu kala dhaqaaqo wax badan waa laga sheekan karaa laakiin waxyaalaha loo baahan yahay aashu waa saa arkaysan oo 4.5 ka lagu habeeyay ama waxa qof walba ka hadlay oo ah war wax bini aadan nus amiyaa jira marka hore ba intii isku maadan yahay 4.5 wax ka xumaa bini aadan sameyn lahaa waxaan wax ku saxayna waa khalad lagu saxaya wax kale oo jira meesha ma jir marka watan markan daba leeyahay shanaha laga dhigo laakiin wali sharciga kuma jirto hada waxa fiican official in looga hadlo ama leeyahay dadka hal Soomaaliya hada waxa leeyahay markii xilligii magaranaysan 10 wasiir laga dhigay min laba laga dhigay waxa la sameeyay laakiin sharciyan kuma jirto baarlamaanka waxa lagu saleeyay 255 waa 4 min 60 iyo 30 hadii la sameeyay maxaa loo kordhin waayay oo looga dhigi waayay kulli wax siman ana waxa points ka meesha la taaban karo oo la rabo in wax laga sameeyo waxa weeyaan waa meesha wax lagu qaybsanayo ummadan kale iyadoo markaa khasab baa dadka la isku soo raaxay أنا waxaan taariikh waxaan ka sheekeynayaa dadku sida wax ay arinta ugu culus yihiin ciyaartoyga qarankan ahayn waxaan aadnay Kuwait waxay ahayd 95kii kabtanka qarankan ahaa markaas waxa dhacday markaa nin habeenkii ciyaartoyga kamid ah waa garan kastaan hadda North America hadii la joogo sida basketballka loo ciyaaro horhan nin habeen gacantiisu ay kula shahayo hadii soo jeedo tuuraba ay u dhalanayso marka wax iska jira weeye dadkii Soomaalida taageeraysa ahaa gabar kamid ah ayaa maxay ahayd ninkii aad uga heshay oo jeclaatay waa taariikh dhaba bas nimankii waxay yiraahdaan marka la xiriirnaa gabadhii marka waxa la yiri wiilkii bay damacday oo isjecel yihiin jacayl side love aragti ah marka anoo kabtanka baa leeyimi waxa la yiri waxaanu ka rabnaa inaan keen bayrahan waa ka magaalada geeyno markaan sii baxay dadku dhalinyaro lahaa team baa lahaa badana qofka loo yimaado inta kala xilin bal Saciido anahay ilaawin waxba hadii wax lagu soo dhiibo bal ana iga warhay markaan meeshii degan laftiga isaan lahaa waa lagu soo dhaweynaya odayaasha maxay ku hayaan waxay raaheen waxaan u soconnaa gabadh aan adeerunahay ayaa raggeena nin kamid ah jeclaatay marka waxaan rabnaa kabtankii maadaama aad tahay ninku yuu yahay anagu markaa waa garan kartaan 75tii oo dhalinyaro la yahay oo bulool la ciyaarayo waxa iga wada socda leesba yaqaanaba Soomaali Maxamed baa la wadayahay waxaan ku walahi ninkaasu anu ma garan kari waayo meeshu ka yimeen xataa ma garan karo marka asxaan noo falo bal dib isku noqdo oo bal habeen baan ku soo mar way habaan ragii baan u tagay aan isku qolka ahayn laba nin oo markaa isku wada saxanay qol waxaan ri xuja taagano ninkii naga mid ahaa gabadhu jeclaatay reerkii baa meesha maraya marka ninku yuu yahay waxa uu yimid waxa meel magaalada ka yimid la garan lay qabiil iska daay kuwa kale aan u tagnay qol kale ku jira saddex kale war waa la isaastaay arinta wax ma naga qaban kartaan maya intii ragga markaan soo tagnay waa suurta gal weeyday waxaan la socdo markaa Allah naxariistay awkaan nala socdo markaa wariyaha sportska ahaa
waxaan cawka aan weydiin lahay may naga daayay odayaasha ha gaarsiinina yaan wax loo sheegin sabeenkii dambe markii odayaasha yimaadeen baa ina keenan baxnay wasaan may shaqaa noo taalo shir baan leenahay bal arrinta halkaan ku dhamaysanna ninkii iyo noqdaa la yiri markaasaan iri wallahi waa is wareysanayo ninku kismaayo ka yibaa la yiri waa yare war kismaayo barabne ninkii iyo yahay waxaan garan maay la garan waa wala soo waxa no aryaarihan ma garateen ninka waa laynoo qarinaya gabadhii adigu halkiiba ku xirxireen waa naga reebeen ilaahay wuxuu qadaray in gabadha ay soo dhooftay xamar timi hadday timina ninkii waa isguursadeen ilmay ilaahay u kala marka wixii ay sheegeen waa socon waayeen maanaha marka waxa weeyaan baashu ma aha wax aan leenahay hal la dhameeyo oo maaragtay aynu ku soo koobayno khudbada yar iyo ma ogtahay in yar isku timi dadku waxa wanaagsan aan waxaan qabaa xagga sharciga iyo xag inuu waxaan aad u jecelahay runtii inaan debate-kan caawa dhan laga wada hadlo laakiin waqti aan saamaxayn waxaan jecelahay inaan inta ku soo koobay laakiin anigu waxaan dadkan aan aaminsan baan ahay kuna soo koray kuna barbaaray qaranna wax ku soo noqday ilaa heerka qaranna gaarsiiyey wax walba in loo wada siman yahay marka aanay jirin wax kala qaybsanaana iyo wax kala sareeya marka inaga laftigeena waxaan jirin yaan la qaadan wax aan jirin yaan la qaadan waxaan xustaa xamar hadda siyaasadda markaan ku jirnay mawlid macaan allah naxariistay mawlid baa ahaa nin siyaasiya mawlid macaana agtiisa wax ka jabsan karaa haba yaraatee ma jirin marka waa inaan sidoo kale taan sameynaa waa mahadsantihiin waxaan leeyahay shirkuna ha guuleysto doodana ha socoto ilaahayna wayna gaarsiin karnaa cimrigeena haddii cabaar haddaan sii joogno iyadoo haddaba halkan lama joogi jirin meel ku xun baa la joogay in taasoo dhammaatay aynu gaarno intaynoo hadhay cimrigeena waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta waxaan rabaa inaan wax yar ku darsado intaanan su'aalaha qaadan su'aalaha ayaan weydiin doonaa dadka fikirka ay ka qabaan barnaamij noocan oo kale ah ayaa waxaa laga soo sameeyey Nairobi marka gabar barnaamij ku jirtay ayaa la weydiiyey su'aasha ah Soomaalidu ma siman tahay waxay tiri masana waxay tiri diintaaba sheegtay inay nasanayn marka Sheekh Abubakar ayaa run ahaantii jahli badan oo ku jira arintaas culimadan u deyn doonaa horey uu uga hadlay Sheekh Abubakar fikirkaas gabadha run ahaantii meesha ay ka keentay wuxuu ahaa in waxay tiri gabadhaas diintaaba sheegtay in gabdhaha lagu guursado nasabadooda ku guursada nasabadeeda maalkeeda ku guursada iyo quruxdeeda nasabadiyadii marka ma nasabiyada anagu aan isticmaalnaa mise waa nasabiyadii diinta ahayd meeshaas waxaa ku jira jahli xoogaa aqoon darra jirta taas waxaan jeclahay culimada inay si fiican uga faalayso insha Allah waqtiga soo socda Sheekh Abubakarna uu ka hadlay mid kale oo waxaa jirta aqoon darro dadkii inay is aqooninba war ninka ku yasaaya horta adiga ma kaa liitaa mise waa kaa sarreeya aniga I believe inuu opposite yahay caawa inteena meeshan fadhida inteena badan waxaan nahay dadka yasa aabayaasheenna waxay ahaayeen kuwa dadka yasa haddii la eego marka aqoonta qofka cilmigiisa xitaa physical appearance-giisa qofka siduu u egyahay hadda si nin caata ah oo anigoo kale ah hadda gabar rabta maba jirtaba run ahaantii hadda gabdhaha waxay ku leeyihin ninku waa inuu ahaada muscle build annagana waxaan leenahay bantuugan jireerka ah war jireerka waa kaa dhisan yahay macnaha waa kaa xoog badan yahay waaba kaa qurux badan yahay aniga I believe hadday noqoto aqoonta ninka maanta ee xoolaha qalaya ee kabaha tulaya ee birta adiga aad isticmaalaysid sameynaya waxaad leedahay waa tumaal waa kaa farsamo badan yahay kuwa mashaqaystayaasha ah oo aabayaasheen ay ka mid ahaayeen waayo kuwa dadka yasaayay oo xoolihii muxuu ku qaranayaa haddii xataa birtii uusan samaysan karin marka annaga hadda tii waaye annaga ninka aan yasayno oo leenahay ninkan waa iga liitaa midgaan waaye ama jareer waaye ama tumaal waaye waaba kaa ragnimo badan yahay waana kaa farsamo badan yahay waana kaa aqoon badan yahay aabihiisna aabbaha uu ka aqoon badnaa uu ka farsamo badnaa mashaqaystu ahaa aabbaha lazy ah oo dadka caaya tii ana daba socota marka insha Allah waa ka bixi doonaa Cabduqaadir Nuuraani wuxuu yiri midigta iyo bidixdu yiri waa laba aan kala maarmin gacantaada midig iyo bidixdaada maanta mid ma dooran kartaa miskiin aan buntu haysan in magaciisa la liido muslimna saas lagu sheegto yiri waa midaan aan aqbalayn macnaha islaamnimada aan sheeganayna iyo dadka aan liideyno
ninkii ma hubaysna waa beelaha aan hubaysnayn beelaha aan hubaysnayn war beeshu haddayna hubaysnayn waa beel fiican be intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamijkeennii codka jaaliyadda Canada oo toddobaadkan aynu kusoo qaadanay kulan aqoon-yahano Soomaaliyeed ay ku qabteen magaalada Toronto iyagoo ka kala yimid gobolada uu ka kooban yahay dalkan Canada iyo gaar ahaan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo ay uga hadlayeen barnaamij ay ku wacyigelinayaan bulshada Soomaaliyeed sidii looga bixi lahaa qoorsiga iyo kala sarreynta ku dhex jirta mujtamaca Soomaalida haddaba daawadayaal barnaamijkeena codka jaaliyadda barnaamijka xiga inta aynu ku kulmi doono anigoo ah Muxudiin Jaamac nabadgelyo